warbixinta dhammaystiran waa tanaa lambarka aad wacda lama heli karo fadlan markale ku soo celi halow laba sac koor waxaa la soo sheegay gabar 20 jir in lagu waayay buuraha Salexbuur dhankooda waqooyi waxaan rabaa jigboontyada dhan in la xiro waayaha tali filimkan waxa lagu tarjumay maxaa uu siikan taliya wuxuu leeyahay gabar 2 sano jir oo 20 sano koor dhig hadda la raadiyo leeyahay muxuu ka wadiyaa marka war adiga saas laguma dhihin waxaa lagu dhahaa 2 sac koor ayaa waxaa la baa gabar 20 jir taliyana saas ayuu ku dhahay ee adiga wax fahmayno jigle hadda wax ma maqashidoodii oo iga qabsi geedka marka adiga wax dhageysa marka aniga hadda ay dhibta adiga maxaa qabanaysaa hooshada raaca ayaan ku dhahay iga qaba geedkan soco gacankayga lama sii kartaa waxaan xoo ahay oo sii anu ko shaqoon jirin oo noo dira joog guriya leesin ma wadataa waa wataa maxaa dhacay kaala wadaada xal ma soo cabta waryaa hooy aad dadka maxaa ka rabtaa iska fasax ayaan ku dhahay hayahay bay war fiiri kiiska adiga lagu diray iyo kiiska isma laho ee dantaada raaco kan kuma ogolo waayilkan waxaan ku nac dadka dhan waa naga fasaxaa haye kuwii saaxiibada waa kuwaana way imaadeen miya haye qamarjiyaalka xaafadda halkee loo socdaa maanta biryahan waad ogtihiin xaafadda waxaa ka jiro afduub gabdhaha idinkana wareegiina wuu batay
haddaba booliska waxay wadaan baaritaan waxaa loo baahan yahay idinkana taxadirkiin inuu badnaado aniga waad i aqaanaa socda wejigiini dhaafsiye haddii kalen xabsigaas ku wada arkeenaa idinkii annaga taliya gabdhaha maqan 8 gabdhood waa wax ma lagu daraayo miya war adiga shaqadaada raaco sheekadan oo dhan waxay dhammaanaysaa markaa adiga hawshaada qabsato adiga haba hawshaada qabsanen soco ay soo hortaagnaan soco wejiga dhaafsiye bax aawe waa soo baxdi aflaamta hindiga maraykanka kartoonada iyo weliba musalsalada oo afkaaga hooy ku tarjuman waxaad ka daawan kartaa fanbroj.com waxaa loo baahan yahay afkaada inaad ka adkaatid carabkaadana waa inuu daacad noqdaa adiga labadiiba lagaama haayo maxaad ku tooran tahay marka kaalay waad og tahaynoo lacagta in ay wax xun tahay sida anigoo kale maad iska ilaalisid marka walaalkii beesada jumla oo keeni baabuurka la isoo bixiyeen oo see waaye lacagta faa'iida aw marka hal isbuuc kadib aan keenaa ballan waaye waa ku barya baabuurka la isoo bix walaalka weynna u sheegno arrintan waryaa walaalka weyn afkaaga ku soo qaadina ku dhahay socona ha ii taagnaanni okay maashi يا منالو ديكسي بوس لعقت waa soo dhiibi waatan haye haajare boosow kalsooni ma jirta ma hayta lacagtan inaad qayb ka isticmaasho aniga uguma talagelin boojada ka baxa beesada meesheeda soo waa kara booskayga isbedeli ma laacibaa taa ku dhaa macaan haye waatan egraan naga hayaa waa kuu dhigay hadda okay moo lacagtan miisaankeeda hadduu wax yar ka dhinnaan lahaa adigana miisaankaada ayaan qabyo ka dhigi lahaa kaamil ma ahaa waa kula socdaa boos khataraata adiga horta boosoo mid aa kuu sheego filinkan arkayso filin khatara waan ku yidhi maskaxoona ku socdaa dhagdhag waa filinka يا beelo midaana lacag lagu yeeshtaa oo saas aha abo sawtana ka warjarihi نقط يا انت الغيب بوسو حاجره يا بوسو بوسو حاجره midaan dibadda laga keenay midda dalkeena hadii la isku daro waxay naqay ku yiri from China jag way hadaa cabnaan ku yiri macaana naga hayna dibka ku haysta xawiya marka sheekadan waa noo toosay anagana cirkaan galaa balaayan naqa markaas
wasaqata يا ملي بوش waryaa ganacsi ma noqdo yaryarooti in laga bilaabo ganacsigu wuxuu u baahan yahay karti iyo raganimo adigana waxaad rabtaa lacagteeda inaad ka taajirtid waryaa eygan bannaanka iga tuura inaan sii arka ma rabo naga tag lambarka aad wacda goobta adeega ayuu ka maqan yahay fadlan markale ku soo celi lambarka aad wacda goobta adeega ayuu ka maqan yahay fadlan markale ku soo celi cunugan xumooyar waxyaabaha uu igu sameeyey wax aan u dulqaadan kara maayo cunug xumooyaroo aniga agteeda ku soo koray in uu i khiyaano sideen ugu dulqaadanaa war siduu iga xanaajiyaan ku dhahay mid loo adkaysan kara maayo carootid looma baahnaya ganacsigiinna ayaaba arrintan ku dhisan waxaa loo baahan yahay marka inanka yar inaad fursad kala siiso yaa badanaa xagguu ka baxay hadda mee inankii korkaada ayuu jiraa waa soo laalaadiyaan ku dhahay si hadhow kale kuwa i khiyaani lahay ay ugu waana qaataan yaa koraa xaggee intee xushmad aan askarigan u haayo ayaan adiga kugu cafiyey maanta qabso raashinkan cun siduu raashiin u jecel yahay siiba madaxa ariga inuu jajabsado ayuu rabaa waryaa sax soo maaha hadalkayga tali walaalka weyn waa i garaaca ciidanku garaaci mayse raashinkaaga tartiibu cun adiga dhib badan aninku adduunyada ayaaba sidaan iska ah asiga wuu shaqaynayaa faa'iidadana anaa qaadanayo laakiin wuxuu isku dayayaa aniga inuu i koobiyeeyo oo hantidayda qaato waryaa noolow taliyo walaalka weyliga celi waa i garaaca ciidanku garaaci mayse calaalka iska daaynayo raashinkaaga cunniyo taliyaha ayaa kuu jooga cidi waxba kuguma samayn karto boolis ayaa jooga meesha waa ku see cabsida ayaanba aniga farxad ka helaa cidan cabsanaynina agteyda maba ku noolaa karto staalingna agtiisa ayaa wax walba laga helaa nololna agtiisa ayay taallaa adiga ninkan arrimihiisa inaad isku murjisid maba loo baahnabo wax badanaan la hadlay hadalkaygana wuu maqli waayey anaa soo koriya aan leena dilay taliya ogow haddaadan raashinkaan cunin aniga waan kaa xumaanayaa nabadan ku leeyahay lambarka aad wacday qadka ayuu ka maqan yahay fadlan markale ku celi waxaan u socdaa xero agoon waxaanan u baahanaa carruurtaas agoonta in aan wax soo siiyo 15 maalin ayaa maqnaanaya meesha aan aadayo u socda haddana wax anteenaa ma laha ha iga walwelin 28 ayay maqan tahay wax akhbaarni kama hayo sidee ku dhacday waa inaan raadiyaa halkan ma joogi karo tikid bangalore ii jar jooji gaariga yaa mudane waxaan ku dhahay gaariga jooji dhaqso maxaad sugaysaa jooji gaariga
mudana waan ku salaamay magacayga waa yuuba qaaday salaanta kowda ii soo fariisa marka hore salka dhulka dhig agoonta aanu goobta ku xanaanayno mid ka mid ah waxaa tiri xaflada loo dhigo deetana waa aan la dabaaldegayaa haddii aad lacag bixinaysana diyaar ayaanu nahay oo marka waa kaa qaadanaynaa wax badan xitaa kaama rabna xitaa 5 kun haddaan siiso waa iska okay يا نقول روا هل مليون العقا ووري mudane waxaan u baahanahay gabadhan akhbaarteeda mudane hal daqiiqa meesha sii fadhi waa kuu soo noqonayaa adoo mahadsan gudaha soo gal mudane waa kan ninkan kuu sheegayay waa ku salaamay dhib male fariiso lakshmika waa gabadheennoo kale wax badan ayay halkan joogtay laakiin waxaan ku weydinaa lakshmika ilaa intee aqoon u leedahay rashmika saaxiibteeda waaye marka iga soo tegaysana waxay dhahday 15 maalmood ayaan maqnaanaa NGO-ga agoonyada ayaan aadayaa haddana 28 ay maqan tahay wax akhbaarna kama hay telefoonkeedana uu dansan yahay meelaan ka raadiya ma aqaano dhibaatadaasna dhexdooda ugu jiraan waa sax waa runtaa midda koowaad rashmika annaga si toos ah nalama shaqaynayn NGO-ga waxaa la qabanaya 14 bisha laakiin iyada waxay tiri 16 ayaan imaanayaa howlo gaara ayaan soo qabsanayaa sidaas ayay nooga maqan tahay maalintaas wixii ka dambeeyeyna il aan leenahay ma saarin mudan maxaa godley sidee wax jiraan ii sheeg xaqiiqada ayaan kuu sheegayaa annaga xataa markaan weyne fajac ayaan lana noqotay arrintan waana fili weyne dacwad ayaan geeyey saldhigga bisha 20 markay ahayd akhriso waatane mudane warqaddaan koobigeedaan u baahanahay dhib ma laha saldhigga ayaad weyddiisanaysaa annagaba way nooroon tahay inaad saldhigga tagtid maxaa yeele waxyaabo badan oon agoonta uga baahannahay ayaad noo soo fududaynaysaa waa kana kaarkayga haddii akhbaar hesho soo wacya waa mahadsan tahay saldhig waan aadaa وريا ما حذشت حضر وريا هيا مسلم حضر وريا حضر وريا واتقشر انا يديك هلا ها مدني سلك بور ayaan joogaa okay aniga ku soo wacay وريا ما حدشان maxaa مسنتين tuuliya kala jira hal وريا adiga u baahanahay soo socota taliyaan rabaan inaan kulmo taliya hool ayuu ku jira xagga sii fariisa asiga ku imaanaya haddii kala dawar maqlay sida kuwaan oo kale ayaa lagu yeelaa tali waa ku tuugana naskeen fasax anaga maxaa nagu haystaa ninkaas laaluush naga cunay yaa way ka laaluush ka cunay kaas naga cunay tali waxaan rabaa inaan kula hadlo qof walba meeshaan ma isaga soo fasaxaysaan adiga soomaan ganax ayaa ku saaran islaali baan ku leeyahay niyo orya ininka xagga fadhiista orya harun kuwan caawo dhan meeshaa ku jiraan ha sii deynin atooraa shaatiga cad meeshaan ma waxay kula noqotay kawaankii malayga oo aad farta iska taaganaysa waa saldhig boolis meesha waryaa naga soo fariiso igraan laqtali magacayga waa yuufa shahaada PhD na wataa aniga cilmiga iyo aqoontaada kuma aana weydiinin waxaad meeshan u timid kaliya ka hadal soo daa warka fiir tali
no waaba gabadhii muddada aan ku daba jirnoo lala'aa haye haddayto magacaaga waa ii sheegtay magacaaga muxuu bal marka liigu celi yuva yuva adiga iyo gabadhan maxaa horta idinka dhexeeya gabadhan soo maha waa nolosheeda odagaan shabaqa dhexduu ka taagan yahay kaalay gabadhan sheekadeeda marba dhinac ayay aadaysaa saldhigaanaa la geynaa waa laga wareejinaa saldhigan kale ayaa la geynaa horta gabadhan layska daba ka wareejinaya maxay tahay waa fahmi taliya maxaad ku hadlay war cilmiga aniga si fiican aan soo bartay aqoonna waan leeyahay afkaaga edab u yeel waryaa wax walba annaga waa la soconnaa cilmi iyo aqoonna adiga waa kaa badinaa adiga shaaticdaa soo xirnaa dambe ma geli kartid miyaana taliya maxaad ku hadlay gabadhan waa gabadha aan guursan rabo 29 maalmood iyo 2 saacadood ay maqan tahay intaanoo dhan adiga xaggee ku maqnay xaggee jirta taliya aniga dibadda ayaan ku maqnaa warbixin ayaan gudbinayay markaan soo laabtana arrintan ayaa lee sheegay ina gudbiye waxbuu kala gudbinaya wiilka dibadda lagu aadaa arunow kiiska markuu xoogaa yaro qabo baa la soo laabanaya waxaa leeyahay sheekadaba hadda ayaa la ii sheegay kaale annaga ma naga caqli badisaana maya taliya maxaad ku hadlay adiga ilaa hadda kuma fahmin ii kaadiba halo wax kula hadlaya waa gaashaanla taliya waa ku maqlaa nin yuufaa la dhaha maku yimid haa iminku horteyda fadhiyaaba arrintiisa waa inaad u xallisaa waa dhammaata anaa xalinaa taliya adiga taliyaha aniga iga sarreeyaad xiriir la leedahay sheekada meesha taallana waa kiis aad iyo aad u weyn hadduu adigu kugu caddaadana ciqaab aad u weynaa lagu marsiinaya waxbaa ka waloonaya aarunow i dhegayso shanta raqam ee teleefonkaaga ugu dambayso 46204 maahan mase waa qaldanahay bal ii sheeg adaan rabaa inaan ku weydiiye waad saxan tahay okay waa dhammaatay macluumaadka adiga iyo saaxiibadda inay dhex maray dhanka koolka marka ay noqoto waxaa soo baxday qoftaas marar badan inay ku soo wacday teleefanno kala gedisanna ay kaa soo wacday haddaba haddii aan warka kuu caddayo shakhsiga laga shikisanya oo tuunku soo galay waa adiga baasboorkayga waa kana arun iskaan ayaad marinaysaa waa kuu biyenaysaa kadibna feelka ayaad ku diraysaa baasaboorkiisa amar waa fulinoo keliya wax kaloo weydiinaysa maa jira aan kaaga jawaabayo naga dahade feelka dacwada koobihiis war haddaad adiga gaashaanlaa xiriir la leedahay waxaad doontid miyaan kuu samaynayna waxba kuuma samaynayna niyo wax aan kuu qabanay haba yaraatee ma jirto wejigaada xunay dhaafsiyi baan ku leeyahay soco tali adiga maxaa kaa qaldan adiga gabar oo keliya ayaad raadinaysaa laakiin aniga xaaladda aan ku suganahay ma dareemi karta ayaan ku dhahay adiga xaaladaada marna way degan tahay marna way kacsan tahay laakiin aniga xaaladdeeda mar walba kor leewaay are arunow tali markaan il gaara u yeelanayo dhaqdhaqaaqaysa aniga shaki baan ka qaaday waayaa tali shan boqol iyo saddex 802 803 feelashaas oo dhammaystiran ayaan u baahanahay iila soo dhaqso taliyahan muxuu ahay niwaabana daaliyoyaa markii 11aad ayuu guriga noo wadaa tali ninka gurigiisa waa kanaa tali ninka 10 maalmood ugu dambaysay dabagal ayaan ku hayay 5 maalmoodna gurigiisa ayuu ka maqnaa taleefankiisna 2 mar ayaa baaritaan ku sameeyey tali cabitaanka waa cawan arkoona la lahaa arkoolo ku lahaa hercules ram ayaa la yidhahdaa niyo magaca iska baro magac may bedeleen waaye de tali guriga hal leeleen ayaa ku jiro leeleenkaasna ma shaqaynayo teeda kalena guriga habeenkii mugdi waaye haddii la imaadana wax maba laga arkaayo habeenkii oo dhanna keligiis leeba daldalmana ani cabsiyow ii geliyeyo taasna runtahay waa aniga habeenkii oo dhanna muusika loo dhegaystaaba dhan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 d
masaakiinta aad sheegaysid maxaa ku dhacay meenaa tali gabarta ninkaan usaa dila u maleeya aniga yaa allor adaa shaqada noo qaban annagana waa iscasilaynaa marka artaliyow
see wax u jiraane see wax u jiraanuu ku leeyahay adaaba shaqadeeda ii qabanaaye inaad iscasilayso kuma qasbanina taliya adan kaa barta maano aniga anaa iga barata markaan shaqada ka fariistana booskayga artaa inaa geshi soo maaha haa taliya maxaa tiri may afka le iga soo dafo waxaan waa maxayna taliya joornaal lee waay gambaleelka aawe xagguu ku yaallaa albaabka gambaleelkiisaan ka wadaa waa kana taliya meeshaan isku yaalaa halow yaa joogo gurigan sidan u weyn markaan qiimayn ku sameeyey waxbaa meeshan ku duugan kolley waxay yihiin iyaga ayaa bannaankiis keeni doona waanu arki doonnaa mar kale gambaleelka ku dhufo yeeri ay taliya haye oo taliya igraan toiletka ayaan ku jiray soo gala haye galinaa maanta dhan bannaanka lay taagnaay gudaha wax ku jiro aan soo fiiriyeyba taliya rasmika haddii akhbaar gashi inaad soo wacday ahayd anaa ku imaan lahaa soo maaha aniga hadda waajibkaygaan gudanayaa anigoo socdana waa aan kuu imid indhaha wax ka daawo keliya adiga anuu keligay inta waa imid mana ka faa'iidaysa si wanaagsan ayaad guriga u sharaxaysay beelaata kabanka dadi maamay taliya hataabanin ku baryaa xiriirka ani rashmika ayuu quseeyaa markuu ku baryaa hataabanin micnahayga ani rashmika ayaan ku xiriiri jirnay khaasun noo yahay okay sorry marka ka raalli noqo haddii aan kaa taabanay mar damba dhacayso dalooyinka waaba arkooya maxaa ka soo dhadhamaayo maxaa ka soo dhamaay maana feelka gacanta ku sii dhibniyo taliyaan ku weydiiyey maxaad cabaysaa hal beeg ii keena u baahanaaye tali igraan noqo waa is iloobee haddii aynu wada cabbi lahayn kafee ama shaah saacadda waa aragtaa sideedda ayay madaxa kala sii baxday mar sideedda haddii la dhaafana kafee iyo shaah iyo waxyaaba noocaasa laguma laaban karo marka waxaan ku leeyahay ha isku dhibin waxba iska daa caadi baynu u sheekaysanaynaa haddii aan kiiska guda galna ka war taliya rashmika wax akhbaar ma ka heshay ii sheeg yaqay taliya sheekadan aniga waan ku wareeray madax xanuun ayaan ka qaaday 3 jeer ayaan salli kugu maaday adigana ma joogin sameeya marka aniga waa wareeray hawa saxantaa waa timid ay fariiso maasanid aarun maxaa taagantaa feelasha ma isiis kewa feelka waayde kewa maana keen adiga yuva faylkan waxaa ku qoran macluumaadkii markii rashmikaa la waayey dhacdada meeshan ku qoranna waxay ka dhacday saldhigga sharnistaa lagu magacaabo rag ayaa waxay isku dayey gabadha inay kufsadaan kufsi kadib ay aashata ku shubaan oo ay sidaas ku dilaan wayna ay baxsadeen ayagoo baxsadka ku jira ayaa meesha gaari soo maray raggii gaariga saarna ayaa arkay arrinta ayaga laftooda waa ay khalkhaleen meeshana waa ay ka baxsadeen waa kana adiga laftaada waa ila fiirin kartaa intaasoo keliya sheekadu maahan gabadhan ilaa hadda annaga ma aanan aqoonsan waxaase la sheegay gaari in lagu afduubtay gaariga dhexdiisana daraagis ayaan ka helnay daraagiska markii la helay kadibna baaritaan ayaa la sii sameeyey baaritaan markii la sameeyey qolyihii ee shaybaarka cilmiyeysan timaheeda iyo dhiiggeedii baaritaan ku sameeyeen rashmikaay ayadana waa ay islahaan waayeen oo waa gabar kale haddaba la soco 5 maalin ayay markaas rashmika ay sii maqan tahay haddana shil ayaa waxuu ka dhacay waddada lagu magacaabo iyo shiluur haddaba shilkaasi qaabka u dhacan rabaa inaan waxir kaaga taataabto gaari ayaa dab la qabadsiiyey gaarigaas 2 qofood ayaa saarnaa 2 qofoodna waa ay ku gubteen shaybaarka cilmiyeysan ayaan annaga u dirnay meydadkii 2 qofood mid ka mida ayaa rashmika ay islahaadeen ilaa haddase caddayn saxan oo aan hubno oo aan dhihi karno waa rashmika weli ma aysan soo bixin macluumaadkoo dhammaystiran waa kuwaana ila eg taliya adinka rashmika ilaa hadda wax akhbaar ma ka helin miya waan dareemi karaa dhibaatada iyo xanuunka adiga aad dareemaysid laakiin waynu dadaalaynaa wixii aan soo baxana waan kula soo socodsiinaynaa waxbaa ka baqin adiga booliiska inaad ka shekisidna waa laga fiican yahay aniga rashmika darteeda wax walba waan samayn karaa la soco teeda kale waxaan ka shakisanahay baaritaankan adinka aad wadaan maba ku qanacsanaba waa wareersanay ordo shaa noo keen ay tali intee shaaka keenaa tali yawriya waa ku fahmay masar yuva
koobiga warqadda aad i weydiisatay waa kana waa kuu keenay weliba si ay kalsooniya ku dheehan tahay qabsaan ku dhihi lahaa hadda asii ninkan cabitaan isla cabaayaan hadhowti maxaa kala tahay saldhiggaa laga wareeraa guriga taa waa laga dhumaan ku dhah warbixintan waa warbixin la hubo waana rasmi qabso taliya waa ku barya waa iga codsi rashmikaa ii raadi waan u baahanahay 24 saacba hal mar ayaa laga rabaa saldhigga booliska inaad soo booqato annaga weli shaki ayaan kaa qabnaa saaxiib maxaane la soco midaas haya tali ninkan yuu noo yahayna bal ii sheeg ninkan weligey maba arkima maanta ka hor inta muu ku arkin ya haa tali maxaa dhacayna baaritaan la wada ee hadda adi meel u socotay sheeg haddana iga shakis raalaaw tali kanna waxaan kaa rabaa isha inaad ku isla dhaqaaqiisa la socoyaa waaya tali kan isha ku hay kan isha ku hay la isku jira haddaan cabitaan cawo wax ma u jeedaa markaani anagoo shaqo noo diraa markaas xaggee aadnaa saldhigga booliska na geeya tali shaqada ana waa ka cabsaa ee qof kale ma igu soo dirtid oo shaqadan ila qabto ya mudana horta runta haddaan kuu sheego waqooyiga indiya ka soo bilow ilaa koonfurta indiya ganacsigaagoo keliya ka socda wax kale kama sideedaba dunidan qof markuu howl qabanayo wax kale kama raadiyo inuu caan noqdo oo keliya ayuu rabaa ya mudanow halkii taliyaha soo socday meesha ka carar walwalka iska daa waa dhankeenna asigabo haye socda heedig waa isku dhammaantay haye maanta aaggaygaad soo gashee shaqo khaldan oo istaalloon qabto miyaa jirto oo aad raadinaysid ii sheeg fariiso marba adiga kiis haddaad geshid boorso lacagaa ku xallisaa waa sidee maanigaa dabagalka ugu samayn karaniyo shaqadaad u timid halkan ku qabo meelaha inaad fiifiiriso looma baahno kiis number 802 macluumaadkiisoo dhammaystiran iga dhegayso kuwa ciyaal suuqiina waxay damceen gabar inay kufsadaan aysiid ay ku shubaan kadibna ay dilaan oo weliba si cadoonnimo ay ula dhaqmaan nasiib wanaag goobta ayaan tagnay baastariintii baabuurkooda ayay ka baxsadeen baabuurka ayaan anaga gacanta ku dhignay ila fiiri adigana waayahay kiiskan maxaa iga qusaya aniga adiga si toosa inuusan kuu qusayn baa suurtagala laakiin dhanka kale marka laga eego qaab dadban ayuu kuu soo gelayaa kiis kalean kuu hayaa dhegaysa 803 ayaa la yidhaahdaa baabuur ayaa la qabtay baabuurkii dab ayaa la qabadsiiyey dadkii saarnaana gaarigaas waa lagu dhex gubay markan gudihiisa baaritaan ku samaynana waxaan ka dhexelnay 2 kiilo oo daraagisa gaariga dhexdiisa haddaad ka heshayna labada baabuurba adiga magacaaga ayay ku diiwaan gashanayeen ulujeedkaada muxuu yahay ulujeedkayga iska fahan waxaa laga yaabaa dhallinyarada hawshan inay ku lug leeyihiin haddii ay ku lug leeyihiin kiiskan qaraabaynayna dhan kalean u leexinaya dad kalean dusha ka saaraynaa kuwan aad arkaysid dhammaantooda waa aaka cabbaysan oo kale keebkana aniga ayaa farta ku hayo hoolaan aniga ogaan hadday qabtaanne dhammaantooda waa laynayaa oryaa baanka u keen waxaad alla kiiskanaan dib u fiiriyayoo adiga kiiskan shuqul iyo shaqo iskuma liidin waa lagugu soo qaldamay iminkasta ma waan iska dhaadhacaya hadda nabaday waxba ha iga qarinin asxaabtaada adiga kuu shaqaysa kiiskan hadday ku lug leeyihiin waan ka leexinana dad kalean dusha ka saarinayna soo qaraabay war
ها رشمكا waa malena halo rashmika يوفا يوفا رشمكا. إنسان ورا إزيدا Xagee joogtaa محل adiga? إيقا فقياقي أنا وحان جوغا ماشي هودكو جعلك أنكو جولي جرني rashmika yaa qof ku dhawaa ii sheeg إزيدا كان إيقا سو قاريا رشمكا رشمكا رايش رايش rashmika rashmika xagee joogta rashmika xayaartigida واو قراعة ودناها مركان مقلان كلها هادي أهلا وفرحاني قرنا أنت kale adiga ciyaartaada xad ma laha miya أنا هدي عيارتي حد لا كاس جعل ما بلغت المامي كرسومو وقدنا جعل كربتها سيدان لوا سفي عني قمنو حوق لابتي يقلي يا أخي ilaa intee إلا لبدين أهل كان قوين أون كبريا يا أخي هاي دين لابتي يقلي أهمسنا ياه جميعسك جعل كان كوكودا جرناي jimicsiga jacaylku lahaa kale adiga waad waalantaa maskaxdaada ma fadhiso mala socotaa 27 jeer aad sidan u ciyaartay أوه نيك سينسيان كاي حسابي واسكو بدلي ميا الله ورا تضبي لباتن جر هدا هورا كوغو سو عيار marka waa markii 8 laakiin waxa jira shaag wixii jirano yaa maxaa jira maanta oo kale aha waa gartay inaa ogin may kul tahay dhalashadaada waa war maanta idaayan ku dhahay dhalashadeeda ma taqaan maalinka taabanaha ii sheegna shaag wixii jiro okay sugi aan soo xasuustay maanta oo kale maskaxdayda ma shaqeynayso be shan sano ka hor maanta oo kale waxay ahayd maalintaad jacaylkiisoo bandhiganaysa wax badan inaa ogaa isoo kuma sheegin bandhigasho wacan mahadsanid hadda soo ma ogaanin inaan kaa tallaabo dheere wax welibana aan ogahay aniga wax baan ilooba laakiin adiga waxba ma iloodid aan ku dhahay qorshaha nolosheen oo dhan waan ogahay aniga runtaada nakeen gacalka geedkaasaa u jeedid sanad guuridii ugu horreysay jacaylkeena ayaan abuurnay midkan kale oo dhankaan naga xigana sanadkii labaad ayaa abuurnay kan kalena sanadka saddexaad kanna sanadka afraad kan hadda aan haynana waa sanadka shanaad xiriirka jacayl nabadeena naga dhexe sidaan oo kale ayuu u bulaalaya wuuna jiraa beentaada maahan anaga haddii aan dhimin xataa waxaa laa meeshan waa goobta jacaylka hay soo sax maadalkeyga ahaa lamaano kasta hadday sidaan geed u abuuraan nabaad guurka ayaa dhammaanaya xaaladana oo kale ayay noqonaysaa beentaada maahan akhbaartaan anigaa faafinaya kule dadkoo dhan u sheegaan yaqi taas naga dhaaf ee hadda arrinkan wax noogu xiga noo sheeg sanadka soo dhaaf saacadaan oo kale maxaan samayn horta soo baxna kan anaa ku tusaayo yuufa sanadka hor xilligan oo kale waxaad iga ballan qaaday hadiyad lama filaan inaad isii doonto laakiin maxaa bisiisaa maanta waxay ku beegneed ayaa aqoon weysa hadiyad miyaan kaa sugaaya maya kaama sugaayo horaan waxaa loo dhahaa dadkaad adagoo shaqadooda badan tahay jeceyl maskax maba u haayaanba macaanta igaraal noqo shaqada kuma runtaada aniga waa mashquul mogtahay haddii waan isguursanayna aan ku dhaha feelashaada intaa ku mashquulaysaaba waqtiga dhammaan goorme ilmi iska dhaleena maya sidaas maan shaqadan hadda hay 3 bil oo keliya ii harsan kadib waan isguursanayna la wadine ilmaha iska dhalinaan ku dhahay ilmahaasna waxay noqonayaan hal tiim oo ka badiga ciyaar tolka ama ku badi rabnaa aniga waa laga yaaba wax walba inaan iloobo laakiin adiga inaan ku iloobo maya macquul ma nolosheeda tahay okay adiga hadiidaada waa haystaa maxaa wax kale weydiinaysa runta ii sheegay hadiidda waxay tahay horta gabdhaha ugu nasiib badan ma taqaanaa dunidan ku nool ها واقنا waa gabdhaha Soomaaliyeed okay nasiibku way heleen laakiin sidee ku heleen ina ogaado u baahna ii sheeg waalidintooda ayaa u duceeyay waxaad ii sheegtay aniga waxaad igu dooratay ii qaabkaad ii jeclaatay intaba okay dhib ma lahan indaa isku qabo meeshan istaga ha kala furin way
maanta dareenkan farxadda leh ayaad isiisa midaan weliga arkay maan jecel fara badan waad isiisa run ahaantii aniga markii hore noloshayda keligay ayaan ahaa laakiin sidaa adiga uga soo birta waxaan helay adduunka waxaa ugu fiican dhiirigelinta waadnii dhiirigelisaa nolosheeda xataa adigaa bedelay soo ma ogid nolosheedaa tahay kafee isbeshalaan kuu keenay hooy qacagsi oo sidaan miyaa u nasiib badanahayna aniga markaan isgursano kadib kafaygan adiga ii diyaarinaya soo maha raashii dhegeyso aroos maxaa ku sugay alaabtaa soo qaado gurigaan iska soo deg adiga magaalo kala degan tahay anigana magaalo taas waa la samayn karaa laakiin dhaqankeennii caadadeena ayaan doorinaynaa oo ku ciyaaraynaa waxaa wanaagsan gabadha in la guursado ee guriga ninkeeda si toosee u imaado dhaqankii caadada reerkaygana aniganaan dumiyo diyaaru maahay run ahaantii halo marwe barnaamijkii berisu waxay 12 waayaa oo manjin beetaa lagu qabanaa soo ma hahey waayaa bashkaar waan imaanayaa manjin beetaa maxaa laga wadaa carruurta yaro 5 jirka ayaa lagu talaalaa ma isii geyn kartaana marka hore aniga waa inaad talaashaa kadib waa macquul inaan ku wado ilmaha 5 jirka ayaa lagu talaalaa adiga nin weyn ayaa taa soo moogid gacan maxaa diiday anagaba 5 sano ayaan jecelnahay haye meelowde oo waan iloobe hadda waxaad qasbantahay inaad talaashid okay 6 subaxnimo lee waa soo moogid waqtiga ka dhiman 6 subaxnimo markay taa is soo diyaar saa hor igu wado haddana waan kaa sii tegayaa gacaliya bye bye ma bixi karaan hadda ilaa meeqay kugu qaadanay adiga hal saac camal ay igu qaadanaysaa okay ku sugan orod soo shaqayso socee باي قعلك اوكي مرو صباحنا السودو صباح رمضان هاي شكلها ايش maxaa kugu dhacayna sidee wax u jiraan maxaa ku bedelay akhbaar xun ayaan ku hayaa ii sheeg maxaa way akhbaarta xun marka hore taada ii sheeg aniga kuuma sheegay marka hore adaa ii sheegaysid okay fariisan هي ii sheeg aan dhageystay marka hore adii sheegna maxaa dhacay akhbaarta xunaa la hormariyaa farxadana waa la daba mariyaa waaw barnaamijka aad soo baartay aan ku dhaha london ayaaba laga codsanayaaba murugada ku haysa maxay tahay marka isbuuca soo socda london aad ka casuuman tahay inaa murugta lama baahna ilaal noqo aniga meeshas uma socdo sababtaas dee laba maamad sideen kaaga maqnaada adiga waa la rabtaa u malaynaya qabo bal telefoonka anaa kuu sheegaaye marka hore warqaddan fiiri shaqo NGO ayaan u socdaa oo weliba xero agoon ah misna waa duur wax anteenana ma laha 15 cishana waan ku maqnaanayaa jaceylkeena in laysku xiisa ayuu ku qurux badan yahay haddaana laysku xiisan mustaqbalkeena ma dhismi karo adna iska bax أنا أنسكب أنا قو أسكو حيصنا يعني مانينا جعل كنا سيدا سوق سيكر دايا قعاليه ينفع أنا قوم بهنية بلان بان إمر مرسي هذا بيجا بلان قد صلندر ما آدي سن رنتنا كهذا أنا قوم حنربا حرير كان إن أنكمل ردلين واحد كسر ساعدين ونقض مرة ونكبر يا مركب مجلسنا آدي سكود هاي قديدن قعالي أنا قصدي أنسان جعلها رش روناتي درين تجلسي اوكي وين بحيا واو جعلك مودي سليم واي معانك هابسي يو فامر كان لا جوغ انيغا فرحت ايان دريما مركو
رميا قفتان شيل ما قش مثل ولا أفضوبتك سيدي حجران كبدان ملح عود ما معقول ما نوت ماي إلى ما مني وإيماني ويسر لوني أنا قاعد سلام مقعيق أنجلي أيا لها بسلي أيانا أسعدي ماشي بروجرام أيان كو قبان روا بلس قارق أيا ماشي إيجا جوي راب أدو حوغن ودايا قريا أيان ميلان كفيري بلس وحان أركي قريقاق أو نلك دارين سيس درتد أيان هالكا نغسول لحدي ومرك عاو مي عاوينيسا أو ميلان جيفتو ميسين كرتا ولاالو وانكو بريا يوان دبانهاي mudane waan soo qabaysanayaa dhinacaas mudane caadi matid biyaanooga si wanaagsan ayaa u garaaci taqaanaa ee gurigan kaligaa miyaad degan tahay
iskaabul miyaa tahay oo iga raali noqo qoftaas waa xaaskaagaan u malaynaya waaw waxyaabaha hiddaha iyo dhaqanka ayaad ka heshaa soo maaha mudane anigaba xilligii kuleejka waxyaabahaas ayaan aad u xiisayn jiray adiga waxaan u malaynayaa inaad arrimaha jaceylka ka hesho hadda muusiga ayaa garaacaysaa sidoo kale qaabkaa guriga u sharaxda ayaan ka dareemay iga raali naqa mudane waxaan u malaynayaa hadal inaan kugu wareeriyo balse dhib ma lah biris wax ayaan sheekaysanaynaa habeen wanaagsan maxaa la albaabka waa xireeyaa furay waan ku salaamay magacaygu waa anjeli joseph waxaan u socday bisley brogram ayaa meeshaas ku lahaa balse gaariga ayaa iga halaabay caaw gurigaaga ma jiifan karaana adigoo raalli ah inaan soo qabaysta ayaan rabaa qoftan xaaskaaga miyaa mudane waxyaabaha hiddaha iyo dhaqanka ayaad ka heshaa ayaan u malaynayaa mudane igaraalnaqa hadal inaan kugu wareeriyaan u malaynayaa biris wax ayaan sheekaysanaynaa habeen wanaagsan
qoftan xaaskaaga miya dhib malan beriyaan wada hadlaynaa isbitooraha wuxuu ii sheegay gabadhan shil baawur inay shalay galbeey ku dhimatay xal mar gurigayga sidee ku imaatay أنجليا يا نمبر كذا يسيف جرين أنا ما وسيف جريني يا وليات قفز نمبر كذا قوم لي يا سيف جرين يا نراك يا إيدار igaraali noqo ninka gaariga ii sameynaya ee soo wacay waxaan rabaa inaan kaaga mahad celiyo garabkaad isiisay teeda kale saaka waa hurdaysay inaan ku qaso ayaan diidanaa sidaas darteedaan kaaga aamuso balse ma aqaan waxaan kuugu mahad celiyo garab weyn ayaad ii gashay markaan imaanaya albaabku waa uu furnaa adigana waa maqneed marka waxaan sugaya intaad ka imaanayso waana kuu mahad celinaya runaantii ilaa wanaag fara badan ayaad hore iigu samaysay teeda kale waxaan rajaynayaa mar uun inaad iigu timaado gobolkan degana sidaad ii wanaajisa oo kale ayaan kuu wanaajin lahaa haddii aadan imaanayn xataa anaa kugu qasbi doono waad arkaysaa
hadda waan degdegsanahay dad fara badanna way sugayaan marka kulanti danbaan ku leeyahay bye bye دكتور حكيت جوكتا وكبر يا إيماو أيوة معك وقول عيه يا أخي دكتور هذا إيمان أنا وأنت منا لما شذا الشيء اسمه حواي يا أخي دكتور فاهم وكبر يا قرقي يوما وكبر يا إيماو دكتور يا waxaan rajaynayaa mar un inaad gobolka aad degan ay ugu soo booqato haddii aad ii imaameyso xataa aniga ayaa kuu qasbaayo waad arki doontaa يوفا وباك فرح يوفا واسيق يوفا حكو داعي يوفا أوه دكتور إقرأ لنا هي هرس ولا يا أريا حتى سيدان هي شك حكى ولا حتى ملقى دكتور حتى يشك تهرق لك هذه ما مسنته arag wuxuu sheegay heeraqad beel bax orod soo qubays kadib waa sheekaysan yaa qey gurigeyga wala jooga dad kale ku nool gurigeyga ifaan dhageysa warkaa ku sheegay qaado soo qubays kadib iimaw markaas sheekaysanaan soo warkaas waa laga rooniyay kafeegan cab أريا دبك كويس تحوي أرت ساكا يا راقرات واحد لو جوجنا شيء جايسي هرت أديك ما أمسيتها يا راقراتك والله يا بقى من سنة نور والباي افتيلنا مقد وكجرا كمان مغنى وحاجر وحيابه إن دعانا ضم ليست أنا دعين كورني أديك وحيابه سو كلام أركت هوا أركي ولي بحالي يعني وأكره دبك كويس تكورني وحيابها أديك فكرة صدم الأساسي حقيقة إني أودع عيان وحيابها أنا وكان إني كودي عدارب تقمريان إيه إنا كلجا تهاي سكراف مركز كدب أوكي يكون نقاح بها جاجا وأنا صوبتان كلها كلجا كوريجا كونوا لاني نكلم إسكرافان كور يا أخي أنا كلجا جميل رسمي كأيان هايستا سومي أنا وحنا فرطنا بصفيق الكودة مرادنا إسكافيري إسكو مجيدا إسلام كلا يليري هوانا قطع دقي marka hore adiga isfiiri stresska ku haayo iyo muuqaalkaaga soo egya hamaara kugu dhac aniga horta marka hore waxaan kuu sheegay stresska adiga ku haayo inaad iska saarto kadib nin wanaagsan aan naqayaan ku yiri oo waliba shaqaysahayo laakiin haddii stresska maalin kasta aad isku wado waa waalahay waalidaadana baci qashin aroorihi haddana waxaa kuu soo diraa jandani naftaada idaa ka fikirayso adduunkaaba sidaan iska eh rashmakaana maalin uun waa helaysaa laakiin cabitaanka raaxabaysa iska dhaaf nin wanaagsanaa naqahe هاي نفترض كده حد ريا واسيبح
halo warheedha mudana yuvayow labadan kiis ee aan gacanta ku haya sidaan hadda ugu lifaaqayay gabadha adiga kaa maqanay rashmika madax wareer ayaan qaadnay departmentigoo dhan raggii ka shaqaynaya waa ay wada wareereen waxna waa ka soo saari waayeen hal taariko ayaa baabuur badan loo wada isticmaalay oo lagu dhejiyey iyada oo laga dhigay inay wada leeyihiin annaga baaritaankiisaan u wadnay waxaa noo soo baxday arrin aan ka yaabnay arrintaasna wax kale maahan gabadha adiga kaa maqan iyo labada gabdhood ee shilka gale baabuurka lagu gubay hal isbuuc ayaa la wada diiwaan geliyey annaga baaritaanka sidaan u wadnayna sheekada 3 bilood ayay nala gaartay xiritaankii kiiska ayaana hadda taaganba waayahay aaw saaxiibadeeda meel ma ku sheegtaan yuva saaxiibow aad iyo aad baan horta uga xumahay inaan kuu sheegay xitaa aad bay ugu adkayd laakiin runta haddii aan kuu sheego rashmika waa ay geeriyootay shil baabuur ayayna ku dhimatay master uv annagu haddaynu nahay booliska waan dadaalnay adigana isdeji shaqadeenna waa ka soo baxna annaga kolley haye taliyaa waa ku salaamay kiisaska feelashooda aad haysid ma iska soo wareejisid maxaa kuu dhacay waxaana soo diray booskeena stalin ee feelasha aad haysid nagu soo wareeji annaga waryaada idinka meesha maala yacni baad ku haysaan nimanyo waxaad doontaan ayaad rabtaa inaad iska sheegtaan soomaan haddaad filal u baahantiin ma si degan aniga ii weydiisaan filasha gudahay ku jiraan orda soo qaata maxaadna taagantihiin master uv meesha sii fadhi waan kuu soo laabanay hal daqiiqaya waryaa idinka doquma ayaa tihiin sheeka yaraad soo maqlaysaan kiiskaad noo bumbuuninaysaan waryaa annaga baxraana gelina caqli ma lihdin waxaad tihiin haba yaraatee ma jirtee raash la'aantaada aniga sideen ku noolaada ii sheeg maxaad ii cidlaysay adigaan kuu baahnaa oo togtee hadda dunidan keligeyga maxaan ka kaala adiga maxaa kugu dhacayna maxaad samaynaysaa qof aqoon leh ayaa tahay xataa 10 daqiiq haddii aan soo dahays ma maarayn kartid miya waxyaabahan aad nafsadada ka dhaadhicinaysa maxay yihiin aniga yuufa aan ahay laakiin adiga yaa tahay ii sheeg ditoorasi jandani ayaa ahay waxaan isoo diray ditoor ashoog sidaasaan halkaan u imaaday aye raashmika maaragta haddii aan damco agtaada naa madax xataa waa laiga hor istaago qoftaana iga hor istaagayso garbni kaama rabe meeshaan isaga tag aan yuufa aniga yuufa lama yidhaahdo yuufaana aqoon uma lihi ee dhibka badan iga daa oo kuu sheega haddaba hana isoo dabagelin maxaad samaynaysaa yuufa jooji ayaan ku dhawaysaysaa kale adiga yaa tahay markaad noloshayda soo dhex gelaysid aqoon maad ii leedahay may soo maha looma baahan aniga garab inaad siiso rasmika aniga jaceylkayga ayay ahayd dareemaha jecel ay siisan la'aantiisa maba noolaan kari teeda kale waxaan kuu sheegaa
dareenkan aniga dareemaayo adiga iska daayay kun dictor haddii la keeno dareemahaas ma iga baabi'i karaan adiga nolosheeda maxaad ka taqaanaa jeceyl maxaad ka taqaanaa aniga waxaan dareemaya adiga ma dareemi kartaa may marka ugu dambaysa waan kuu digaa meeshaan isaga tag mar dambane ha ku soo laaban guriga haddaba baan ku sheegay out out gurigan aad u jeed oo sidaan u weyn ayada oo keliya ayaa leh waxaana ku dugan xusuusteeda oo keliya دكتور أشوق أنا أقول إيكا صدر إنا كحنانية igaraal noqo shalay si qaldan ayaan kula dhaqmay xilligaasna waa cabsanaa waxaan samaynaya iyo wax kale ma kala ogeen waa ku baryaha ii qabanin يوفا أديك واحد كنا شيء حسوسي هوري دونتن وحلو بهاي بيها كركود إني كرسو بيسو لكن دونت مر هدي بيسو قلان ويقوسسا أديك نحيالي هور إسكيلو kaal adiga guriga dhan maxaad u nadiifisay ii sheeg waxaas waa caadi ataada kale sidaan guriga u nadiifiye haddii aan qalbigaaga u nadiifin lahay way ii dhacan lahayd doonta aa saarneedna xasuusahanoo idil ayaa qoosiyey wayna la degtee rashmika ayaa waay ii sheeg qoftaan waa jeceylkayga waa noloshayda waa wadnahayga waa dareemahayga wax walba ayay ii tahay qoftaan ma iloobi karo waa noloshayda qoftaan caadi maaha noloshaadoo dhanna xasuusaheeda ayaa qaateen soo maaha dabcan hadalkayga waa sax nolosha wixii kaa taga oo keliyaha maahin ee waa waxaad haysato anaga derbi ayaan jebinaa si aan albaab uga furanno laakiin adiga noloshaada albaabadeedoo idil waad soo xirtay misna derbi ayaad ku wareejisay ugu yaraan waxa ila ficnaan lahayd riyadeeda xataa inaad rumayso intaas ma garan weyda maxaad ka waddaa waxaan ka wadaa rashmikaa riyadaada haddii aad dhammaystirto adigana waad caafimaadaysaa aha waad saxan tahay jaandani hadda raja eed gelisay marka garab miigu siinaysaa nolosheeda inaan wax ka beddelo oo ku baryaa garab ayaan kaaga baahannahay garab misiinay noloshaada shalay iyo tamaantaba waa buundada aad beri uga gudbi lahayd waxaana loo baahan yahay buundadaas si tartiib ah inaad uga gudubto si aad noloshaada u dhisato yes waad saxan tahay weli rashmikaa miyaa soo xasuusanaysaa run ahaantii inaa ilow isma barin meel walba aan tago wax walboon sameeya ayadalan soo xasuusanaa haddaysan ii soo laabin xataa lagama yaabo jecelkeeda inagu baaba'o mar walba qalbigay ayay ku jirtaa rashmika boolisku xaggooda way ka dhimatay laakiin taas aniga ma aaminsani waxaan aaminsannahay maalin un inay ii soo laaban doonto oo agteeda imaanayso sideedaba rajada waa qayb nolosha ka mid ah si aad nolosha horumar ugu gaartidna waxyaabihii hore waa inaad maskaxda ku haysataa balse saamayn aysan kugu yeelanin marnaba waad saxan tahay jandani haddii mar walba sidaan aad ila joogto qalbigayga aniga waan la hadli karaa laakiin runta haddii aan kuu sheego qalbigayga waxa ku jira adiga ma fahmi kartid mana dareemi kartid aniga waxaan dareemayo waan fahmi karaa weliba in badan maxaa yeele dadka siday kuu maleeyaan adiga ma tiid waxaad tahay nin aqli badan weliba geesi ah yes waad saxan tahay hadda soo bax aniga qorshana samaynayo nakeen soo bax suraac qorshe maba loo baahno ee waxaa loo baahan yahay hadaf nolosha rashmikaa oo dhan waa inaad ka soo baxdaa maxaan ka soo baxaa iftiinka nolosheedoo dhan mugda ayuu isku beddelay ee hadda maxaan sameeyaa adiga ii sheeg jaandane intaan aniga jecel siiyey in ka badan
ayaed ayaa isiisay sidaasay tahayna weligeeda wax ma ii weydiisanin aniga waxay iga bari jirtay wakhti inaan la qaato nolosha quruxda badan aan ku fikiraya ayad inaan la qaato iima suurtogelin haddana waxaan sameeyey ma aqaano yuufa hadda leesoo kuma lehen waxyaabihii hore oo dhan iska ilo maxaa kugu dhacay raashmika qalbigayga dhagax kama aysan dhigin teeda kale haddii ay dhagax ka dhigilayd maanta adiga ma kula hadleen waqtina ma kula qaadan lahayn laakiin mugdi iftiin ma noqda yuufa ifahan aniga raashmika hal riyo ayaan ku riyo jira marka macquul ma tahay hal qof riyadaas inoo baabi'iyo hal qof markii uu riyoodo riyo oo keliya ayaa lagu tilmaamaa balse laba qof markii ay riyoodaan riyo laguma tilmaamee xaqiiq ayaa lagu tilmaamaa dadka qaar waxaa jiro su'aalo isweydiiya haddana jawaabo aan heli karin dadna jawaabihii ay haystaan su'aalihi ayay heli karin qaarkoodna labadaba ma haayaan noloshoodana wareer ayay ku sugan tahay adigana run ahaantii waxaa ku wanaagsan xusuusii hore yuufa 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 istaag aniga mar walba waxaan jeclahay xasuusaan inaan iskilow iska baabiyo laakiin maxaan baabiyay xasuusiya ay daba taagan adigana arrintan garab igu siin karo ee garab sii jaantine oo ku barya waxyaabihii la soo dhaafay haddii la oloobi karo dictor ma waloo baahnaan lahayn xilligaas waa runta laakiin familkaaga xaggee ku nool yihiin anigaa ku soo tusinayo waadna arki doontaa familkaaga aawe familkayga 20 sano kahor ayaan meeshan ku waayey shilkaasna wuxuu ahaa shilka nolosheeda beddelay oo sidaan iga dhigay xilligaas aniga waan yaraa mana xasuusan karin familkayga markay igu fogaadeen aniga aadaan u cidlooday keligaygaan naqday yuufa aadaan ugu xumahay isdeji waan ku baryaa waxaa la dhahay dadkii rafaad soo mara ayaa raaxa arka adigana waxaad isku daydaa fikraddan kelinimada aad iska dhaadhicisay inaad iska saarto sidoo kale waxaad iska dhaadhicisaa inaad nolol samaysato weliba jeceyl maxaa yeele markaas waxaad helaysaa lamaano daacad ah cidladaana waad ka baxaysaa nolol qurux badana waad ku noolaanaysaa markaas waaye adiga diyaar muu tahay qoftaas inaad ii noqoto maxaa tiri waxaan kaa rabaa cimriga inta ka dhiman garabkayga inaad taagnaato taas day dhici lahayd way wanaagsanaan lahayd jaandani aniga reeshimka nolosheenna waxay ahayd sida hal beej oo kale laakiin adiga waad ka duwan tahay noocaas braawo jaandani braawo waad ka baxsatay si fiican ayaad u garaacday muusigayga iyo muusigaaga ayaad isku dartay muusig macaan ayaad ka soo saartay waxaad ogaataa dhaawacayga muusigan leh inuu dhayi karo haye maya yuufaa balse waxaad ogaataa laxanka iyo muusikadaad arkayso waa hibo laysa siiyey run ahaantii muusikadan aad diyaarsana waan ka helay aniga teeda kale hadalkii aad shalay igu lahayd run ahaantii aniga waan ka soo fikiray balse adiga sidee kula tahay micnaaga maxaa ka hadlaysa ilaa hadda kuma fahmin adiga shalay waxaad idhahda waxaan rabaa gacalisadeeda inaad noqotid anigana sidoo kale gacalisadaada inaan noqdo diyaar ayaan u ahay waxaa lagaaga baahan yahay baraatig fara badan inaad samayso sidoo kale heese wada jirna aan qaadno si noloshan inta ka dhima farxaddaan ugu noolaan
kaale adiga goormeed imaade lama filaamiya mar hore ayaan guriga imaaday kafaayaan kuu sameeyey xataa intaasoo dhan kama warhaysid miya adiga iga raali noqo okay thanks maanta waxaan ku faraxsanahay inay kalsoonidaada dib kuugu soo laabato waana waxaan ka helay run ahaantii beela waaye teeda kale xaaladaada ka waranba waa sidaa sheegtay waa wanaagsanahay mar labaad ayaan xasiloon dareemay jacaylkaaga iyo dareemahaaga ayaan ku caafimaaday wax walbana adigaa sabab u ah waadna ku mahadsan tahay aniga tatooreysa ayaan ahay shaqadeeda oo keliya ayaan qabsaday wax kale ma samayn no waad qaldan tahay jaandini xaggay ditoor kama tihid ee waxaad ka tahay qoftaan jeclahay walwalka iska dhaaf mar walba garabkaaga ayaan ahay berit waa inaad ii timaadaa waxaan kuu diyaari lama filaan aad u qurux badan lama filaan ah lama filaan ah lama filaan ayaan kuu diyaariyey jaandini u kaadi lama filaan waqti hore ayaa timidee haay lama filaanka ay haysa in sugi waayno saa darteedan ku soo baxay qalbigaaga sida uxanoo kale ayuu qurxoon yahay qabso marka bannaanka lama taagnaana wuu qurux badan yahay soo gudub okay jandini maanta aad iyo aadaan u faraxsanahay marka hore su'aalo oo keliya aan isweydii jiray laakiin jawaabihii dhan adiga ayaa siiyey wax walbana adiga ayaa sabab u ah nolosheedani adiga ayaan ku hibeeyey la soco laakiin dhible amaan ku soo jeedaa oo dad kale arkaan iyo faa walwalka iska dhaaf guriga cid kale ma joogto kaligaa ma degan tahay adiga ila joogano 10 daqiiqa sugaa fresh iska soo dhiga okay haddii aadan ii imaan xataa aniga ayaa kugu qasbaaya si walba ahaataba guriga berito waa inaad iigu timaadaa lama filaan ayaan kuu diyaariyey nolosha inaan kula wadaago diyaar ayaan u ahay kaale adiga yaa tahay waa aniga jaandani ayaan ahay
dadkan iyay yihiin ii sheeg iyay yihiin dadkan aniga rashmakaa iyo anjeli saaxiib isku dhow ayaan ahaan maalmaha ka mida ayaa nala soo wacay waxaan noola sheegay rashmakaa inay geeriyootay waan aamini weynay run ahaantii gabadhaas dil iyo kufsi ayaa lasugu daray balse arrintaas booliska way caddayn waayeen waxayna ka dhigeen shil oo keliya anjeli waxay heshay kiiskaas caddeemo ku saabsan waxayna rabtay dibadda inay u soo saarto laakiin arrinta waa la ogaaday shil baabuur ayaa lagu dilay qabrigeeda xataa ma tegan aniga meeshaan iska lahayn arrintiina xaliya ayaaba nafsadeenna baxar sii gashay markii aan rabay adiga inaan ku imaado wax walba kuu sheegana adigaaba xaalad kale ku sugnayd run ahaantii sidaas darteed ayaan aniga wax walba kaaga qariyey dhibaatadaasoo dhanna kaaga soo saaray hadda dadkaas waxaa loo baahan yahay xaqooda in loo soo dhiciyo waana adiga qofka keliya ee gabdhaas xaqooda u soo dhicin karo waa ku barya xaqooda u soo dhici waan ogahay karti ayaad leedahay arrintaana wax badan ayaad ka qaban kartaa waa ku barya wax ka qaba baabuurtoo dhan hal taarika ayaa ku wada dheganay meesha la raba in la dhaho waa la kufsado waa la dila arrintii oo dhan shil baabuur ayay ka dhigeen nuv haddaan runta kuu sheego rashmikaa way gooriyootay shil baabuur ayayna ku dhimatay angelina shil baabuur ayaa lagu dilay maadaama ay runta ogaatay Christopher Stalin. mudan warka jag igu soo maxaad ii haysaa waxaan rabaa isbuucan gudihiisa qof dhimashadiisa in joornaal lagu soo daawaco weli beejka hore horta beejka ugu horreeya in lagu soo xusayo ma sheegi kara laakiin ninkaas inuu dhimanayo waan kuu sheegaa anaa kaa hub ho waa 5 milyan lacaga maxaad am kugu yartahay 25 milyan ku hay laakiin gormay ku siinaa mataqaana markaad hawsha soo qabato shaqadan oo kale weligii hore uma aanan soo arkin diilkaana magaaladan laguma barakaba see waaye laakiin qofka la dil rabo yaa waa ii sheeg beesadan qaaliga lagu qaadanayo okay waa kana fiiri array waa waray adiga ma soo waalati macnaa isbitaalka waalid ma lagu geenaa ninkaanaad ka hadlayso qofku yaa mataqaanaa iyo qofkaad la hadlayso waryaa milyamada dad bixisayta shaqadan kuma qabanaya laakiin ninkaas adigaa ka ag dhow si fududna ku dili kartaa marka hayga diidan ku baryaa barka mali waay tan kuleela ay qabto banaanka iyo bix adaa beri jira idida lagu soo daabacaa ballan waa qaa'in warkaale war anigoo stalin TRB ah miyo 25 lag
igu qiimeeyey macquul maaha warkaali booskaada miyaad buu u ogolaatay 25 lag in lagu qiimeeyo yuu yahay ninkaas yuusan noqon karaa يا مدنو أنا وربحن كوسو أرورنا وأنا كوكينا بري ورنقتك doqon ayaa tahay baraka malay waxaan kaa rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan warbixintiisa oo kaamil ah in aad igu keento haddii kalena waad dhimanaysaa anaa dabaal haddaan diiday yaa kaale aniga muubu dilkayga qorshaynaya yuu yahay horta yuusan noqon karaa yaa waaye ninkan anigaaba u baahane ku aaway anaa ku rabo malaayga cayayaanka ayuu cunaa malaygane bini'aadanka ayaa cunaa malayga wuxuu gaadaa cayayaanka bini'aadankana waxay gaataan malayga cayayaankana bini'aadanka waxay cunaan markuu dhinto ciiddana ka hoos maro Chandni! Yuva! anigu waxaan ahay qofka dunida ugu farxadda badan anjeli rashmika qofka dilkooda ka dambeey ayaan hadda soo dilay ka warane mahadsanid maadaama aad maanta xaqooda u soo dhicisay yes 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 Chandni! hadalkaad ii sheegtay run ayuu ahaa anigana nolol cusub ayaan galay haddii aad ila joogtidna waan isbeddelayaa cabsida ugu badan ay haysa ma taqaanaa inaad adeeg iiga fogaato maxaa yeelay cidladii ayaan ku soo noqonaya haddaad iiga fogaato agtaada aniga waxaan ka ahay jecelkaaga oo keliya laakiin agteeda
wax walba ayaad ka tahay adiga hadda miiga tegaysa soo maaha jandini ii jawaabayno jandini ila hadal jandini 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 kuwaawe Chandini! 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 yuvaw xaggee aadahay ee maanta o dhan aan ku raadihay aniga soo kuma dhahin qofka kula kulansiiha haddaa kula kulansiiha kow dheh ina keenba soo ayaa taagnaani soo kuma dhino qofka kula kulansiiha waa kana yuufaa la yidhaa ninkan titoorasa jandani ahay barasho wanaagsan jandani waay magacayga titoor maxaa ku dhacayna anigaa kuu sharaxaya titoore cudurkan waa cudur aad iyo aad halis u ah waad saxan tahay anaa hore waxaan u dhahay gabar la yidhaaho jaandanii aa kula kulansiiha laakiin wuxuuba niyeystaba jaandaniidi inay u timid kadibna ee la joogto oo asigaa malaystaba ahaa aniga waaba ogaaba tan waaliyoo keliya inaysan ku ekayneen waali lagu daray ay tahay hadda maxaan annaga samaynaa oo nala gudboon ditore kuwaawe ditore aw jandini ii sheeg aw jandinideeda titoras jandini waatan maan يا جاندني واتنا مجد مي حاكو دع بيني يتيشي يا aniga jandini waa aqaana qoftan jandinideeda maan jandini waa tortada taagan ditore adigu waxaa tahay qeena luweyn yuva waa ku barya ani lama ayya ditore istaalan aniga gacanteedu ku soo dilay adigana hadda waxaad doonaysaa jandinideeda inaad iga disho sooma kaamiyelay xageed geysay marka hore xaaskayga ayaad iiga fogaysatan waxaad doonaysaa jandini inaad iga fogaysa xageed ku qalis ii sheeg weerishi ii sheeg aw jandinideeda u baahanahay xageed iiga sida ayaan ku dhahay sida maxaad ugu dhigantahay منولي ديتور
waxaad sheegtaa wejigayga sidaa maxaa ka dhigay sheeg ditore muraydan wax badanaa ka khaldan aniga wejigayga sidaan maxaa ka dhigay sheeg ditore yuufa walwalka faraha badan iska dhaaf daawo dheeraadaan ku siinayo ya maxay dhahday ay daawo dheeraada lagu siiyaa bas waay aniga yaadin dacweynaa dhammaantiina isbitaalkaan ma waa xira aniga dhimaysaa naga raali naqahe titarow cabitaanu ka orod okay waaya aniga ay dhammaantiina waa idin baabina waa yeelatii dhigteen waa yeel fiir wejiga sidaad u gasheen aniga sidaan mahan cunug dhalinyaraan iska hajiray waad i baabiiseen yuufaw oo ku barya maxaan ii fadhiiso waa caafimaade walwalka faraha iska dhaaf keen haye cabitaankan qawban isqabooji tartiibkaan naso wiilkayga yuufaw nasiinaa u baahantaa kow dheh tartiib u seexo iska seexaa lagu hafidi bal titor dhegaysa bal wiilkan 10 daqiiqa kabacdi waa soo naaxa caafimaadkiisana okay waa waardiya okay ninka horta muddo 2 sanaan daaweeyay aniga markuu miirkiisa wax yar soo laabtane wuxuu ilaahay tigtoor wajigayga sidaa maxaa ka dhigay ii sheeg waayaha baaba waxaad iga sheekaysaa sheekooyinka qoraayo dhan qiyaali ayay ahaayeen miya hadda annaga dhankeena haddii laga hadlaa waxaan qiyaalayna leeyihiin laakiin dhankiisa ma taha waxaana u dhacaya dhan waxaa u malayaa wax run inay yihiin horta ninkaa muddada 2 sanaan daaweeyay aniga maskaxdiisa iyo waxay samaynayso dhan aniga waxaan ka diyaariyey barnaamijkaasna hadda ku tusaa indhaga ku arag bal Stalin yuva ninku waa dil u dhahay soo kan maaha haydi toore Stalin haye idinkoo maatan iyo fadhiistahe enjandaniye horta yuufa dadkoo malaysahay mar walba inay la kulmaan waa kuwaan hortaada fadhiyaan ninka uu dhahayana waa soo dil ee starlin lagu magacaabo waa ka asigan hortaadoo fadhi doctore bukaanka xaaladiisa bal iga war isbitaal yuva siduu kula dhaqmi jiray ii sheeg markii hore run ahaantii si wanaagsan ayuu ila dhaqmay ugu horrayn saldhigga booliska ayuu iigu yimid rashmika arrimaheeda ayuu wax iga weydiiyey aniga asagana waa ballannay gurigiisa ayaan aaday gurigiisa markaan tegayna labadii kiisaan gacanta ku hayay ayaan oga sheekeeyey hawsha markay ii soo dhammaatay kadib anigoo soo baxaya ayaa waxaan arkay digtoorka oo gudaha soo galaaya waxayna ahayd markii ugu horraysay oo aan aniga digtoorka kulanno 3 bilood kadibna digtoorkaan kulannay arrimaha wuxuu iiga sheekeeyey yuuba iyo markaas xaaladiisu siday ahayd hayatali tartiibkaagii booskayga ayaa u baahan feelasha wiilashii intii aan la sheekaysanay oo aan gudaha ku jiray ayuu asaga inta feelashaydii gacanta ku dhigay iskala dhaqaajiyey dib markaan u soo laabtay ayaan eegay waana maalinta koowaad oo aniga shakiga uu galay oo aan ogaaday yuuva inay wax ka qaldan yihiin yuuva aad iyo aad ayaan oga xunnahay run ahaantii baaritaankii waa soo gebagabeynay waxaana noo caddaatay rashmika inay shil baabur ku geeriyootay baaritaan markii aan samaynayna caddaymihii oo dhammaystiran ayaan soo aruurin haddana waa kuwaan iga qabso shil ma idhaahde maxaa loo kufso waay kadibna loo dili waay markaas ama logsiyo laga faa'idaystaa haadi toore markuu ani ila kulmaybo rasmiga akhbaar ma ka heshay maya ma ka helin akhbaar ilaad kama helin maya okay kaarkayga waa kana haddii akhbaar hesho ila soo socodsiiya aya okay kaararkuu isiiye waa kuwaan nin shaqaalahayga ka midda ayuu lacag soo siiyey si uu ninkaas aniga ii dilo
ninka halkan siduu ku nool yahay anigaa mar hore dilay aniga iyo ninkaas wax xiriir inagama dhexeeyo laakiin mid ayaa jirta mudane qof aad igu muhiim ah ayaa iga maqan marka igu soo duceey si aan u helo gabadhaas aniga ninkaan markaan arka shaki ayaa i galay taliyaha ayaan la kulmay kadibna adiga ayaan kuu imid horta minaa mid nii sheeg ninkan daqiiqad maskaxdiisu waa fiican tahay daqiiqadda kalena waa isbeddelay caafimaadkiisana meel aan ku tilmaami karna ma lahanaan ku yidhi aniga horta arrimihiisa wax xiise iguma hayaan aniga waxaan xiiseeyaa oo keliya lacag okay nabaday doctor cudurkan haleele maxaa sababa inaan ogaanaan rabnaayo unugyada maskaxda ayaa dhaawac ka soo gaaray horta maskaxda bila'aadanka xibno aad u fara badan iyo dareemo badanaa ku jiraan dareemaha hadda idiin sheegane waxaa bannaanka uu soo saaro unugyada qofka maskaxdiisa ku jirto unugyadaasna waxay gaarayaan balaayiin unugyada hadda idiin sheegane waxay soo saaraan qofka maskaxdiisa waxyaabaha faraha badanay ku jiraan sida dareenka aqoonta mid ka mida unugyadaas dee wax soo gaaraan maskaxda dhan oo qofkaas waa burburaysa waxaana ku dhacaya cudurka loo yaqaano shushrafeniya waayahay maxaa keena waxa keena wax kale ma aan kalinnimada xanaaqa faraha badan iyo cabsida waa waxyaabaha ugu horreeya cudurkaas qofka ku dhac saameeya horta cudurkan waa cudur halis ah mideeda kale haddii aan kuu sheego annaga haddii uu dhaawacna soo gaaro waxaa laga yaabaa inaan isku ilowno laakiin qofka cudurkaas qaba iloobi maa waxayna iska samaysahayaanaan ku yidhi nolol qayaali ah iyagoo jaabkooda iyo faani cudurkaasaa hadda haayo gaar dadkan maxay sheegoyin ilaa hadda ma fahmin tigtor hadalkaaga ma xumo ninkaas waxaa ku tiri jaandani ayaan kula kulansiinaya anigana weli lamaana kulmin iyay tahay jaandanidaas oo maskaxdiisa ka samaysta misna uu la kulmo inaan ogaado waa muhiim horta yuufaa 11 sano markuu jiray habartiis iyo aabbihiis shil baabuuray ku dhinteen shilkaas baabuurne waxaa ka badbaada asiga iyo darawalka oo keliya markaas kadibna sheeko la yaab laa dhacdaba yuufa maxaa samaynaysaa iska dhaaf wiilkayga jaandaniidoo sawiraha qoftaas ayay ahayd anigana waxaan ogaaday ninkan cudurka fobi liraa inuu qabo anigana wakhtigaasaa xaqiijiyey ee anjaniida kale yeetaa marka anjaliya waxay ka mid ahayd kalkaalasooyinka aniga ila shaqeey jiray asigeena ilaali jirta mar walba anjaliya waxay shaqada soo gelaysa 6 saac wixii ka dambeeya anjaliya raashin ma siis haa ditoor waan siiyey anjaliya bukaanka ma soo fiiris haa waan soo fiiriyey ditoore haya anjaliya cirbad ma durtee haa waan duray hayahe daawooyinka ma siis haa waan siiyey ditoore anjaliina magaceeda mar walba sidoo dhagiisa ugu soo dhacaaya maskaxdiisa way seefkaraysa maskaxdiisana meel walba iska aaday haba aadda hadday doontee doctore waxaan ku weydiinayaa ninkan dadkan uu maskaxdiisa ka soo wartay sidee ayuu ku kala gartaa inaan ogaadaan rabaaye horta waa saxanta annaga dhankeen haddii loo fiirsho kiiskaas waa kiis adag laakiin yuufaa dhankiisa annaga mar walba horta waa nacaabiyaa asigaa noo kala sheego qofkuu necb yahay iyo qofkuu jecel yahay intaba muuqaalkooda wuu hayaa oo sawir buuxuu sameeya xisaabahaasoo dhan markaan isku soo dhuftay aan ogaada arrintan aniga waayahay doctore daawo ma loo heli karo si uu sidiisa hore ugu noqdo annaga horta tijaabooyin aad u yaraan samayn ilaa haddana ma ogaanin ninkan daawadiisana titoro keliya maana qof kale gacanta lama geli karto titore daawo waa loo heli karaa ninkan xad ku hadle aniga ayaana daaweynaya yuufa hadalkaygana rumayso run ayaan kuu sheegayaa hadduu wax alaalihi wuxuu rabo aanu qabto laa shaki in uu daawoo waayo yaxaad ku hadle fikirkan intee ka keenta tigtoor aniga igu daa arrinta anaa qaanqaabka u xalin lahaa middaas macquul ma adiga qaabka ninkaa lagu bedeli lahay ma haysid
annagana maba diyaarinba qaabka ninkaa lagu bedeli lahaa see ku bedelaya marka muhiimadeenna maaha in la bedelo ee waxay tahay inaan daryeel daacadnimo ay ku dheehan tahay aan ula tagna asiga mideeda kale maalin hore ayaan baaritaan sameeyey waxaana ogaad inaan daawey karo ninkan adiga waxaa ula dhaqantay tigtor iyo bukaankiisa oo kale see u wada dhaqmaan laakiin naxariis xaggiisa marnaba umaadna firin inaa u fiiriso isku day galgaceel fara badanle inaan siiyo aniga ayaa diyaar u ah wuuna caafimaadi doonaa waad arkaysaa titoore waayahey titoor ahaan maa u siiyahay ma shakhsi ahaan aaba titoore yuufa noloshiisa rashmikaa markay ku jirtay qof wanaagsan ayuu ahaa soo maahan maskaxdiisana ay tamaam ay tahay hadalkayga ma qaldanaan u malaynayaa rashmikaa markii uu waayay ayay maskaxdiisa bilowday in ay dib ay u noqoto xasuuso fara badanna ay gadaal ay u raacdo maskaxdiisana cadaadis badan ayuu saar maskax bini'aadan waa iska iisi siday wax ku noqoto dadkana waalidiisa ayay arkeen ee fiyoobidiisa maysan arkin aabbo mideeda kale dareenka oo qabo muusig ayuu ku gudbiyaa dadkana waxa ka maqan way arkaan oo keliya laakiin ma dareemaan qofkana waa la dareemaa laga yaabay in uu isbeddelo dareen saxa haddaad siiso qofka bini'aadanka mugdi markii uu ku jiro waxaa qasaba in uu iftiin helo idinkana tigtoorre haddii aad tihiin bukaankiina iftiinkoo arkaya waa inaa iftiin kale oga sii raadisaan anigana xaaladda yuuva waxaa iiga baxay xoogaa wax yar oo aan wax ka qaban karo ditore وريا يوفا نجي استغني ازدج ترتيب adigu waxaa tahay khayraanol weyn mar labaad ayaad ii caddaysay dhakhtar feygaa tahay adiga oon jirin nolosheeda haddii wax ka ogtahay mar hore maxaad iigu sheegi weysay maxaad ii khayantay waa ku barya jooji waxa aan wado aniga isoo fiiri marka hore aniga lagama yaabo qof inaan dilo laakiin anigaa isdilaayo kawaan iska siinaa rashmika meesha aada waa inaan taga dunidan kuma sii noolaan karo waa isdilaa baso aniga yuufay dhegayso aniga waxaan ahaa saaxiibtaada iyo raantaada ilaa hadda kula socotay horta ma xasuusataa markaan yaryareen oo nanaca iga dafi jirto oon jir oo kaa daba qaylina isina naceyga aan ku dhihi jiray soo xasuusa bal si fiicanna ii fiiri ay soo dhawaana ani cudur xunaan qaba ee hoosta iga soo golan haddaba waa kuu sheegay hey yaa ku dhahayne adiga cudur ayaad qabtaa kan waay ditoorkan waay ee kan tigtoor miyaa dadka waalana noola keen uu ka mid yahay runtaa miya ahaa waa runtay i aamin ditoorkan faalsi waay nas faalsiya waxaan ku fahmay qaamiintaana soo wad mujadido haddii dhegayso tartiib isdeji labadeenna bannaanka ayaan wada aadaynaa adoo deggan weliba nakeen hee soo bax marka